السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي النصرة أو إذ الله welcome to my channel all of you sidoo kale muuqaal cusub face live idin wada maanta intaan muuqaalka u guda gelin su'aalaynta badan snapchat liiga soo weydiiyay rabaa inaan ka jawaabo oo la igu dhahayo oo snapchat kaaga oo marka qaar oo wajigaaga la arkayo sawir ama muuqaal aad socodto waa soo gelisaa maxaa maaragtay aad youtube kaas kaga mamnuucday horta snapchat iyo youtube laba platform waay snapchat wixii la geliyo 24 hour kadib way ka baxayaan laakiin youtube waxa soo gelisid hada adiga ka saarin weligood ku jira ila abad hada xataa dad badan oo hadda maanta dhinto waxa jira videoyashooda aad daawano qaar wax wanaagsan sheega iyo qaar wax qalad sheega ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantood u dambi dhaafo intii muslimiin oo dhimatan allah u naxariisto anagana waxa ilaahay gidashadna ma fidneeyo marka muuqaal yar oo maaragtay ama meel aan socdo ama ilmahayga aan la enjoy gareena hada ama wax aan soo gali inta badan wax inta aan duubo inta aan soo galiya yar mudooyinka ugu dambeeyay waliba snapchat ma soo galiyo wax marka saas horta laba platform waaye oo kan waxa laga yaabaa inaa wax sakima yar aad geliso laakiin youtube ku ka duwan yahay dhamaantiin waa wada ogtihiin laakiin waa idin ku soo celinaya sidaas daraadeed marka macnaheedu ma ahan inaa maaragtay muuqaalkan aan snapka gelinaa ugu talagalay inuu weligiis isaga jiraayo wax ogahay inuu biri baxaayo inkastoo dad badan ay soo bateen oo hadda screenshot qaadanayaan meel u diin ma garanay screenshotyada taasaas uga jawaabaya su'aasha labaad haddaad face live muuqaal bilaado qofku daawanaysa ma lahan dadka subscribe kuma siinayaan taasna waxa ku leeyahay haday ka helaan ay maaragtay jeclaadaan waa codsi ayaga u deynayna kuma qasbano inay subscribe ii sameeyaan channelkayga laakiin waa codsi walaashii nasr idinka yimid subscribe lagu qabta labadaas su'aal saa uga jawaabay inaan ku sii dheeraado ma rabo marka waxaan rabaa inaan maaragtay muuqaalkayga aan maaragtay aan diirada saaro muuqaalkayga maanta waxaan rabaa inaan maaragtay aan faa'iidooyinka maaragtay oo go'aanka uu leeyahay go'aanka ma ahan go'aanka maaragtay lagu soo dhisay oo lagu soo aas-aasay oo maaragtay lagu soo waday laakiin go'aanka adiga naftaada ka yimid oo waxaan ku dhahay 99% maskaxdaada inta meel fariisatay aad waxaan ku dhahay wax aad dhisato tiri okay ana waxaan ku dhahay go'aanka ana soo gaaray decisionka ana soo gaaray kanaan ku soconaya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala waliba la kaashanayo faa'iidada uu leeyahay faa'iidada koobaad uu leeyahay waxa waaye waxa ku sahlanaanayo nolosha ina easy ku noqonayso marka taa qof go'aan leh oo go'aankiisa maskaxdiisa oo ka imaaday waxa ku fududaanayo the way of life noloshaada ina ku saxmayso maxaa yeelay waxa ku socotaa go'aankii maskaxdaada ka imaaday maskaxdaada ilaahay subhanahu wa ta'ala maskax wuxuu siiyay oo aad u weyn laakiin anaga waxa maskaxdeena xataa u maleynaa especially markaan bulsho Soomaaliyeed nahay wax yar percent yar aan maskaxdeena ka isticmaalnaa percent yar dad yar maaragtay maskaxdooda si fiican u isticmaalaan go'aanka marka go'aan inaan leedahay naftaada faa'iido noocaa ugu jirto boontiga maanta aan rabo inaan taabto waxa waaye naftaada haddii aad ogtahay well down aan ku leeyahay haddii aadan ogeyn inaad tahay qof go'aan leh oo go'aamadiisa ku socdo 100% naftaada faa'iido aad iyo aad u weyn ayaa ugu jirto number 1 horta naftaada ku mahad celinayso naftaada waxa ku dhahayso thank you oo naftaada meel kasta ma dhigayso marka tahay qof go'aan leh oo go'aamadiisa ku socdo naftaada waxa ku dhahay meel walba maaragtay oo halaq mareen ah iyo meel walba maaragtay lagu dhibaateynayo meel walba lagu bahdilayo naftaada ma dhigaysid maxaa yeelay go'aamada alaaba u gaarooyo naftaada moogta laakiin marka go'aamanka lagu leeyahay waxa laga yaabaa inaa maaragtay adoo raba inaa maaragtay meel iska wareejiso inay bay'anbar inta kaaga soo jeestay ku tira kan maana ka sameey hay raac iska tahay adiga wax go'aan ma lihid waa qof qalqalsanaa tahay ma deganid qof xasiloon matid qofka xasilan maxaa lagu yaqaanaa qof walba qofku ka xasilan yahay
wuu ka go-aan adag yahay go-aamada naftiisa inuu asiga u gaaro ayaa hadda cilmi baaris cusub oo la sameeyey waxaa la ogaaday dadka degan waa dad go-aaman iyo naftooda u dejiyeen ku socdo marka adiga horta faa'iido aad u ballaaran ayaa kugu jirto inaad tahay qof maaragtay go-aanka naftiisa asiga u gaaro haddii aad tahay marka qof maaragtay dadka markuu wax rabo inuu tala aanay dad haweydiisan kuma dhahay waalidaa leedahay walaalaa leedahay family aad noqon kartaa qof oo xaasa oo la qabo ama aad noqon kartaa laakiin muhiimadda ugu weyn oo aan rabo inaan kugu dhiirigeliyo waxaa maanta aan meeshan kugu soo fadhiyo haddii aadan ahayn qof go-aan leh haddii aad tahay qof naftiisa asiga aanan go-aamada u gaarin ama go-aamada waxaan ku dhahay lala maamulo ma ahayn dadka inaad tala aadan ka qaadanaynin oo kugu hareereysan ilaa adduunka hadoo la isku hareereysan yahay saa hore carabka ugu soo dhuftay dadka talooyinkaada ay ku siiyaan wixii kaa anfaca ka qaado laakiin naftaada inaad go-aan adiga u gaartid muhiim waxay u tahay naftaadii koo muhiim u tahay dadka kale xagga idhig naftaada markaad go-aan adiga aad u gaarto aad ku dhaqdid naftaada aqbashay maskaxdaada wixii ka yimid aqbashay waayo soomaalida maxaan ku mahmaanaa waxaan dhahnaa biyaa la yiri sacbahaaga looga dhargaa go-aan marka maskaxdaada haddaad isticmaalo oo aad maskaxdaada that means waxaa maskaxdaada kalsooni kuma qabtid adiga haddaada maskaxdaada go-aan ka imaada aadan ku soconin dadka waxaan ku dhaha kugu sukeeyo ama caruura dhasha ha noqdaano ama qofaad nolosha wadaagteen baartankaaga ha ahaado ama goob shaqo dad aad saaxiibadaada shaqada sidee rabtaa markaas inaa uga dhaadhiciso inaa maaragtay lagu respecte gareeyo taas waa mid gooniya laakiin way isku xiran yihiin respectiga go-aanka waxaas dhan isku xiran yihiin marka fadlan jooji macnaha naftaada inaad meel uga dhacdo jooji aniga aan haddaan hadalka anoon maaragtay aanan without filter aan soo tuuro waxaa waaye qofka go-aamada naftiisa lala gaaro wuxuu la mid yahay qof maskaxdiisa meel uga dhacay waa maskaxdaada ay kugu filan tahay qof caafimaad qabo ilaahay caqli siiye marka aad tahay wax aqri wax srijgareey kobci maskaxdaada waa aqligaaga waaye maskaxdaada macnaheeda haddii maanta go-aamanka noloshaada aad ogolaato dadka kale inay kula maamulaan waxaa dadka kale u caddaysay noocay doonaanba isugu jiraane aqligaaga kuguma filno go-aan kuma gaari kartid ayaa u caddaysay marka ha u caddaynin aqligaagu kugu filan yahay maskaxdaada ay kugu filan tahay go-aanna way ku gaari kartaa oo haddii go-aan waxbarashaa ku gaari kartaa go-aan diinaa ku gaari kartaa ilaahay qof muslim oo kaa dhigay nimcooyinku ilaahay huna siiyey waxaa kamid ah alxamdulilah dad ilahay islaamnimada ku ciseeyanahay go-aan ilmahaaga inaad si nolol kaala araga u korisaa ku gaari kartaa shaqadaada waxaan ku dhahay inaad si sharaf la u qabsato oo aad maaragtay ee kaa soo go-do marka go-aankaaga ha ahaado mida adiga kaligaa aa gaarto haddii aad rabto naftaada inay meel sare gaarto laakiin haddii aad rabto naftaada in hoos loo dhigo dadka la tasho maxaan sameeyaa maxaan yeelaa saanaa igu dhacday kanaa igu dhacday maanta la soo taagnaaw balanteen waxaa waaye go-aanka in adiga naftaada u gaarto maskaxdaadane inaa waxaan ku iri aad siday tahay aad u isticmaasho video waa dheereeyey waxaan idin leeyahay meel baa joogtiin waa mahadsantihiin fi amaanillaah inta cusubna waxaan idin leeyahay channelka subscribe-ka noogu dhufta inta hore u joogtana waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin aad idin jeclahay dhammaantiin like-ta share-ta waxaasoo dhan hasdin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.